Filimkeena maanta waxa uu ku bilaabanayaa gariidka Halkan ayaa ku bastay lamaanahiisa iyo halista oo musqusha ku jiray miigana waa ka gubtay kabtanku si dib ah ayuu u xakameeyey jooga diyaaradda laakiin dama dhagaysan digniinaha shaqaalaha xitaa isagoo geeri ka kow saaran ayuu sidaarkiisii u dambeeyey shiday balsena sii waarin shandada aan si fiican loo firin ayaa gudaha diyaaradda ku kala tahay dhinac ilaa dhinac arrintaas waxay si degdeg ah u dhalisay musiibo kasii weyn qaar ka mid ah rakaabkii ayaa si toos ah uga baxay diyaaradda labadii matoor markii ay awoodii lumiyeen way caddaatay inaanay gaadhi doonin go'aan markuu arkay jooga diyaaradda oo sii dhacaya kabtanku wax kale ma haysan aan ka ahayn inuu bada ku dejiyo kadib markii shidaalkii la daadiyey rakaabkii hore ayaa iyagoo raacaya tilmaamaha shaqaalaha galay booska badbaadada ee caadiga waxyar kadib iyadoo uu kabtanku xakamaynayo diyaaradii waxay bilowday inay biyaha dushooda ku sii bato laakiinna ay filaynin in badan ay ka buuxaan dharaayo jidka diyaaradda ayaa dhinac ilaa dhinac ka jeefmay saanaynkii xooga badnayd ayaa kala goysay diyaaradii markii wafooda degeen muuqaalku wuxuu ahaa mid argagax leh diyaaraddu waxay u kala jabtay 3 qaybood sam wuxuu ku jiray qaybta dhexe markuu hareeraha eeri aad bay u yaraayeen dadka badbaaday waxaa kasii murid badnaa inay oo kursigeedii fagiday meel aan la gamin inaba tuuray intii shay ku saaday nasiib wanaag lili daawaceeda ma ahayn nig aad badan waxay ku dabaalanaysay burbur samaynaya markii wax filana biyaha hoostooda u jiideen markii ay ugu dambayn fuushay burburkii waxay argagaxday markii aragtay lugteeda hoose oo jeexan sida fuuq muuqdaan waxay u muuqatay in biyaha hoostooda ay ka buuxaan mafruubiyo gaajaysan dhanka kale ben ayaa soo toosay wuxuuna argagax ku ogaaday in muraayada hore ee kolka duuliyaasha ay wada dhigi laabsan tahay waxaa kasii badan lugbafid si adag ayay ugu deganay ben iyo shaqaalaha beni waxay isku dayeen wax kasta oo ay awoodaan balse ma ay sii dan karin hej wuxuu ku yidhi inay isala katadaan haddii muraayada jabto oo biyuhu soo galaan madaxa diyaaradda oo dhan wuu begi doonaa fursadooda keliya waa inay shidaan albaabka kolka duuliyaasha markaas oo keliya ayay heli karaan jajayaf kadib haydan nasiyeed oo adag ben wuxuu doostay inuu dadka kala hormariyo hej wuxuu gacanta ku hayay sawirka qoyskiisa isagoo si degan u wajaaya dhimashada soo socota waan idin jeclaay dhanka kale dabada diyaaradda waxay ku degtay iyadoo madaxoos ugu daaray dhalar kolol ah nasiib wanaag jeeb hawa ah ayaa gudaha ka sanaysnay laakiin dabada diyaaraddu waxay ahayd qaybta ugu burburka badan afar qof oo keliya ayaa ku badbaaday halkaas keli ahaanba way ku xiriirmeen shaqaalase waxay dhaawaca rakaabnad ku duubtay faashad bekii oo daa ah wax badan ma qaban karin king wuxuu ku bayanayay madaxa walaashiika laakiin saldhiga ay dabada ku taagneyd aad buu u jireersanaa baqlafaafiya ayaa salabaya inuu dumo oksijiinkii gudaha ku jirtay iyadoo sii yaranaysa waxaa laga yaabaa in dhimasho keliya ay subayso dhanka kale ben wuxuu eeday burburka fog wuxuu ogaa in heebta boqolaal kilomitir u jirto xitaa gunadka ugu dhafaha badan wuxuu qaadan doonaa saahado waxaa kasii welwel badnaa in haddii kalabta calaamada degdega ee qaybta dhexe uusan shakayn raadinta maalno ayay qaadan kastaa si loo hubiya in calaamada gunadku baaday beni waxay isku shitaantay inay bada ku booto laakiin markaas ayay dabada yar ay kula aragtay wax biyaha hoostooda ku jira markii aan la soo dhawaynayn ben isaguna shak ayuu arkay oo digniin ayuu u qayriyey beni laakiin beni aad bay u dabaalakay si ay u maqasho ben wuxuu si degdeg ah u buufiyey dooniyar oo bataalo wuxuu qaatay kole wuxuuna u dhafaaqay beni markaas ayay dareentay fatasta balse aad bay u daaday shak ayaa si lama filaana uga qaniinay hoosta ben gacankeeda ayuu gobtay wuxuu isku dayay inuu doonta soo saaro laakiin shakii markale ayuu weeraray beni wuxuu ku jiiday biyaha hoostooda bakii si degdeg ah ayay dhiig u asaatay shaktii wuxuu ku bastay doontii ben wuxuu ku balaahay ujii doonta marar badan ilaa uu dib ugu ereyay biyaha beni gebi ahaanba way dhintay ben wafkii uma haysan murugo wuxuu sii watay inuu kalageeyo qaybta dhexe ee diyaaradda dhanka kale biyuhu markii ay sii kacayeen lii waxay gabaarsatay in haddii sidanaba sii jiro mafluubyada hoostooda ku jira ay cuni doonaan si kastaba ha ahaatee geesnimo ayay sii yeelatay waxayna u dabaalatay qaybta dhexe waxay weli ku deganayd korata laakiin burburku ma faadi karin culaysta qof walba sam wuxuu soo jeediyey inay dhammaantood u guuraan barahyada bannaanka yaal habii kale qaybtaasi way begi doontaa laakiin ruj oo ku xanaaqsanaa guudaradii tartanka sportska wuu diiday wuxuuna la murmaysan nasiib wanaag tababaradada ayaa kala baxgalay isla markaas lii oo daawahan ayaa timid sama ku arkay inay nool tahay isla markiiba kor ayuu usoo jiiday sida ma filaana shak ayaa kasoo weeraray hoosta burburta meeshii yarayd waxay isu bedeshay goobhaasug tababarihii ruj iyo mid ka mid ah saaxiibadiis ayaa biyaha lagu jiiday ruj ma aqbali karin dhimashadooda wuxuuna agadiisa ku qaaday sam labadoodii way iskalahayn ben ayaa yimid waftigiisa faaha wuxuu kala eriyey ruji wuxuuna u sheegay in haddii ay sii dagaalamaan qofna uusan noolaan doonin dhanka dabada diyaaradda mad wuxuu go'aansaday inuu khatar weyn qaato wuxuu neef qaatay kadibna biyaha ayuu gusay dabado aabama qoto dheeran magdisha ayuu soo baxay laakiin qof ayaa gadaal ka fabtay wuxuu ahaa daalan abaha ay isla nool yihiin efing shak ayaa si lama filana uga soo booday hoosta daalanna isla markiiba biyaha ayuu ku jiiday markana dib uguma noqon karin dabada dhanka kale ben wuxuu eeda oo dan saaray shakada diyaaradda iyo kabtanka isagoo aan ogeyn inuu isagu yahay sababta dabta ee masiibada biyaha oo sii kacaya ben wuxuu dadka u abaabulay inay soo saaraan doomaha badaalada waxay heleen qalabkii calaamada degdega ahaa runtii weliistii uma shatayn markaas ayay golol ku qaadi waayeen culayska burburkii wuxuu bilaabay inuu bada ku siigto ben wuxuu ogaaday inta weli walaagkeed raadinayso wuxuu qalabkiisa yeedan si uu u ilaaliyo kadibna wuxuu u laabtay raadinta ka qaybtii dhexe si buuxna ayay u burbustay lii ayaa soo galay qof walbana bada ayay ku tuureen dan qalabkii
kii wasiidaayay wuxuuna ku dahay gunta badda markii ban weydiiyey meesha kala ku maray dan mas-uuliyad magaaban wuxuu yidhi haddii uu sidaas muhiim u ahaa maxaad adigu u haysan weyday inta kale sam wuxuu helay huj oo niyis daboolnay inkastoo huj hore u baadilay sam madaxiisa ayuu kor u hayay si uusan oofan shaks ayaa hareeray ben wuxuu arkay fadadka wuxuuna u dabaashay si uu badbaadiyo ben wuxuu isku dayay inuu joojiyo ben isagoo feed ku bastay ben isaguna gib ayuu u garaacay ugu dambayn waxaysan iyo huj ku soo saareen doonta labada diyaaradaas oo waxay ogaatay in markuu badan tahay inuu dhintay oksijiinkii way dhammaanaysay waxay go'aansatay inay fin dabaasato beekii waxay ogaatay inaysan awoodin waxay ku adkaysatay in say ay fin badbaadiso say waxay ballanqaaday inay soo laaban doonto haddii gargaar la helo say iyo fin way guuseen waxay arkeen maykimad fin wuu aagadahay laakiin say way sii jiiday markii ay dusha yimaadeen waxay arkeen doon badbaado say waxay u dabaanatay shaks ayaa soo muufay mig ayaa paniinaysoy iyadoo xanuun ku jirta ayay fin marka hore kor u saastay markii ay fuushay doonta dhiig baxay badnaa ayaa niyad beeriyey fin ayaa u yeedhay laakiin wax jawaab ah ma jirin shaks ayaa ku bastay doonta fin markuu eeray shak ayaa kor u qaaday fin dheerikirtii ayuu lumiyey wuxuuna ku tahay badda labada diyaarada bekineen ay aadama haysan bii ayaa goorteeda gaaday waxay soo saartay telefonkeeda waxayna egtay sawirka ayeedeeda way dhuntatay shaashada kadibna biyaha ayay kula tagtay dabadii diyaarada habeen dambe diyaarad gunad ah ayaa ugu dambayn heshay goobkii shilii ku gadaag waxaana ajoogay doon kalamaysi oo shiinaysa inkastoo ay kalun balansiday kabtankeeda wuxuu aqbalay codsiga gunadka badbaadayaashii waxay bilaabeen inay rajabeelaan laakiin oobka helikobtarka ayaa ifka ka yeedhay dantaale iftiinah ayaa habeenkii u bedelay maalin iyagoo ku faraxsan badbaadada dhow ma ay ogeyn in iftiinkaasi soo jiitay shaksta sanadka bixiya ayaa hadhi ku soo daray laakiin shak ayaa lugta ka faniinay helikobtarku markuu isku dayay inuu kor u qaado shak ayaa mar kale weeraray sanadka bixiyii badda ayuu ku dahay helikobtarkiina wuu rabaray muujadihii kabasho waxay joogeen doon kale qaar badan ayaa biyaa ku dahay haweenay isku dayaysay inay doonta fuusho dan si ahan baro ah ayuu u rihay shak ayaa jiibay danna waqkooda ma ama muujin nasiib wanaag doontii kalamaysada shiinayska ayaa timid waqtigiisa hwa ahaa ee markuu jiriyay dabka badbaaday wuxuu ogaaday in kora maqan tahay wuxuu arkay in muujadihii helikobtarka ay ku tuureen burburka diyaarada isagoo aan kalaba labayn ayuu biyaa ku booday shaks ayaa daba socday meydad sabaynayay awgood isla markiiba ma weerarin ben wuxuu u riday kora jaakid badbaado isagoo dejinaya waalikeed waxay kubinteen baanunta shakska walaalkeed finda waa la waayey siday gabadh aan 10 jir gaadhin u qaadi kartaa mulubadaas ben wuxuu ku qaaday kee biyahana way ku boodeen shaks ayaa hareeray ben wuxuu soo saaray korihii gantaanada ishtiinka markii shak afka kala qaaday meel dow ayuu ka riday laakiin shaks badan ayaa ku hareeraysna markaas ayaa kayga deer oo markab ay soo jeedisay garinkooda kabtankii doonta kalumaysiga ayaa amar bixiyey in kaluunkii oo dhan ba kala butaadiyo kaluunkii biyaha ku kala yaacay wuxuu nublay waxa shaks kugu jecelyihiin benta kale dan oo si kibah u bataadiya ayaa isku dayay inuu sigaarkiisa shido shak ayaa ku bastay doonta wuu dhahay wuxuu isku dayay inuu kabsado geeska doonta laakiin cidina ma aamin karin shak ayaa badda ku jiiday badbaadayaashii kale waxay ugu dambayn fuuleen doontii kalumaysida shiinayska dayafamadii habeenkii oo dhan socotay hadda way dhammaatay maalinkii xigtay doontu waxay ka dafaafmay korartii kora weli ma rumaysnayn inuu fin dhintay waxay xasuusatay in hooyadeed fin u riday kolabkaadaa waxay amaahatay telefonka ben waxayna isku bayday inay raadiso calaamad ayaa soo bahday doontii waxay bedeshay jihabii waxayna raacday calaamada waxyar kadib waxay arkeen doon yar oo keligeed sabaynaysa say oo tabarbeeshay si muujisa ayay u noolayd waxay xoogeedii u dambeeyey ku qaaday daboolkii biyo aanay gelin kadib markii la badbaadiyey walaasha iyo walaalkii waxay isku duubeen gacmaha fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe like iyo shada asxaabtaada la wadaag mahadsanid